السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان صاحبة خالقة كسو دواذا موخالكينا مانتا فضلا صاحبة دي أي تايمركي كوغو ريسي أصوب وقت الجنال كان إنو سبسكرايب جري مها سند أدي أدوري إنو لجرتين واتكم أسان تاي داوشادا موخالكا فيديو إنو لايك جري كسو دواذا موخالكينا مانتا موخالكينا مانتا حينو كبران دونا سيدا الله سميو بوستر شخو بانان waxaa iga soo codsaday mid ka mid ah saaxiibadii nooga xiran YouTube channel-keena marka aad leedahay meel aad wax ku soo gudbiso waa muhiim dadka kugu xiran inaad codsiyadooda tixgeliso runaantii saaxiibkan ila soo xiriiray ee isoo weydiiyay sidee loo sameeyaa poster shaqo oo banaan oo kale macnaha shaqo ayaa meel ka banaan yani waxaad rabtaa inaad poster sameyso posterkaas oo lagu baahinayo dhammaan barta social media okay waxaan isticmaali doonaa application keeni Bixlab ugu horeyn horta boorka aynu sameynayno ama posterka aynu sameynayno waa noocan hortaada ka muuqda adeer okay waxaan jeenay inaad soo aragtay aanu gudi galno sida loo sameeyo ugu horeyn waxaynu soo furan doonaa applicationka Bixlab markuu soo furmo applicationka sidaan ayuu kugu soo baxayaa mar waliba waxaynu iska delete gareyn doonaa textigan okay delete ayaan ku dhufan doonaa markaynu tagasta iska delete gareeno waxaynu u baahannahay halkaani background inaan iska bedelno okay waxaynu imaanaynaa qaybtaani geeska kadibna waxaynu ka dooran doonaa background color ayaynu ku dooranaynaa color kadibna waxaynu dooran doonaa background cadaankan ah ama white background ayaynu dooranaynaa kadibna waynu soo sax gareysanaynaa ama tig gareysanaynaa okay markaynu ka soo noqono waxaynu u baahannahay hadeer inaynu waxyaabihi aynu rabno aan ku soo darsano halkan ugu horeyn anigu waxaan ku soo darsan doonaa logo waa muhiim meesha aad macnaha shaqada aad faafinayso xarunta aad shaqada macnaha aad u rabto logo ayay leedahay xarun waliba maanta logo ayay leedahay oo si marka la sameynayo poster iyo waxyaabahani badanaa waxaa loo sameeyaa xarumaha ganacsiga ama xarumaha shirkadaha iyo meelahaas ayaa loo sameeyaa okay ugu horeyn waxaan soo furan doonaa waxaan ku soo darsan doonaa logadeena loogada xarunta ay ku soo daray balse anigu waxaan ku soo dari doonaa loogada janaalkayga okay weeraan waxaad qurfinaysaa blasters kadib waxaad ku sii dooranaysaa from gallery markaad from gallery ku dhufato adigu waad taqaanaa halka ay kuugu jirto loogadaada sidoo kale anigan waan aqaanaa halka ay ugu jirto loogadeeda ayaan soo dooran doonaa okay loogadeeda ayaan halkan kala soo baxaya adigana waxaad ku soo dari doontaa loogada shirkadda ama looga caadi aad adiga leedahay si aad ugu fahanto oo aad ugu barato okay aniga loogadan ayaan ku soo darsaday kadibna tig ayaan soo siinayaa sidaad arkayso loogada hadeer si fiican u muuqato waa yareynaysaa horta ugu horeen loogada geeskaas aad dhigaysaa waadna yareynaysaa okay loogada hadeer si fiican uma muuqato loogada si u muuqato waxaan imaanayaa qaybta dhexe kadibna waxaan furayaa color loogada sidaad arkayso hadeer color ayay yeelatay oo colorkaas gaduudka ayay yeelatay madow ayaan ka dhigi karaa cadaan ayaan ka dhigi karaa oo waxaan raba ayaan ka dhigi karaa balse gaduudka ay ku soo baxaysaa oo gaduudkeeda ayay ahaanaysaa okay sidaas oo kale ay iska ahaanaysaa okay hadeer waad arkaysaa loogada halkaas ay ii taalaa okay markay halkaas ii taalo waxaan ku soo darsan doonaa informationka aan u baahnaa dhammaan ayaan halkaan ku soo dari doonaa okay marka aad shaqo baafinayso ama shaqo aad dadku bandhigayso waxaa muhiim ah inaad ku qorto we are hearing wax la yiraahdo we are hearing okay balaas ay tagi doontaa ama waxaad imaanaysaa qaybta qalinkaas aad ku dhufanaysaa markaad qalinka ku dhufato waxaad halkan ku qori doontaa we are ayaad ku qoraysaa we are ileen marka la xayeysiinayo shaqada ama waxyaabahaasi ku saabsan team ayaa ka shaqeeya runaantii okay new textigaas ayaan iska delete gareynayaa sidaad ka warqabto waxaa ka shaqeeyo dad team ah meel waliba team ayaa ka shaqeeyo okay fartaan hadeer colorka ayaan ka bedeli doonaa colorkeedna waxaan ka dhigan doonaa color gaduud ah okay colorka gaduudka ayaan adeegsan doonaa maanta inta ugu badan colorkan gaduudka ayaan ku shaqeynaynaa okay markaan sidaas ugu qorto fontiska ayaan soo bedelaynayaa okay ab font ayaan imaanayaa fartaas oo kale ayaan ka dhiganayaa sidaad arkaysa hadeer we are ayaa halkaan ugu qoran okay ayada baan copy dhahaa kadibna markaan copy dhaho waxaan tagi doonaa edit qalinka ayaad ku dhufanaysaa waxaad ku qori doontaa hearing we are hearing ayaad ku qoraysaa hearing okay hearing
we are hearing haddeer maxay u taagantaa haddii aan Soomaali aan u bedelno maxay u taagantaa waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso ama aadan ba fahmeyn waxay u taagan tahay waxaynu shaqaalaysiinaynaa tusaale ahaan qof baad shaqo siinaysaa marka waa inaad ogeysiisaa inaad shaqaalaysiinayso dadka ama qof inaad shaqaalaysiinayso aad shaqaale raadinayso okay kadib waxaad ku dhufanaysaa colorka black ayaan ka dhigan doonaa ama madowga sidaad u taqaano kadibna waa soo tig gareysanayaa sidaad arkaysa haddeer waxaa sidaan igu qoran we are hearing waxaynu shaqaalaysiinaynaa keliya waa intaas Soomaaliyan marka laga dhigo badanaan sida aad ka warqabtaan haddeer informationist waxaa lagu qoraa luqadda Ingiriiska sidoo kale Soomaali waad ku qori kartaa waxaynu shaqaalaysiinaynaa balse Ingiriiska ayaa aad u qurux badan inaad ku qorto waxyaabaha qaarna Soomaali waad ka dhigi kartaa okay haddeer waxaan ku soo darsan doonaa shape blastas ayaan ku dhufanayaa kadibna shape ayaan dooranayaa kadibna sidaas ayaan u soo dhuubinayaa shape kadib waxaan ka dhigi doonaa shape gaduud ah ayaan ka dhigi doonaa okay kalarkaas ayaan ka qaadanaynaa shape kadibna halkaan ayaynu dhigaynaa shape halkaan ayaynu dhigaynaa okay qoraalkan xoogaa yar iska yaray si ay informationka kale meesha kuugu qaado sidaas ay yeelaysaa okay kadibna shape sidaas ayaad halkaani la simaysaa okay kadib markaan sidaan yeelno oo halkaani shape-keena dhigano waxaan ku qori doonaa join our team ku soo biir teamkeena oo kale join our team ku soo biir kooxdeena okay join our team ayaan ku qori doonaa our team okay ku soo biir groupkeena ama teamkeena sidaad u taqaan okay markaad sidaas yeesho colorkiisa waxaad ka dhigi doontaa color cadaan ah kadibna waxaad join our team sidaas ay u qoran tahay haddeer waad arkaysaa xoogaa waad yareynaysaa sidaas kadibna meel fiican ayaad geynaysaa oo qaybta hoose yuuna kaa gaarin qoraalka kale yuu kaa gaarin okay kadibna qoraalka dusha ka soo saar okay join our team haddii aad rabto fontiga haddii uusan ku qancinin ab font ayaad imaanaysaa farta ayaad ka bedelanaysaa okay sidaas waad ka dhigan kartaa sidaad arkaysa haddeer far aad u qurux badan ayuu ku soo baxay join our team okay markaynu halkaani marayno oon sidaan ugu soo darsano join our team waxaynu samayn doonaa yaa qofka kugu soo biiraya yaa shaqaalaysiin rabta waa in la ogaadaa qofka aad shaqaalaysiin rabto okay aniga haddeer for example ayaan soo qaadanayaa waxaan shaqaalaysiinayaa qof graphic designer ah ama nashqadeeye sidaad u taqaano okay halkan waxaan ku dhufanaysaa blasta haddii aad rabto kadibna waxaad ka dooranaysaa text kadibna edit ayaad ka dooranaysaa okay haddeer halkan waxaan ku qori doonaa graphic designer okay graphic designer qof nashqadeeye ah okay graphic designer Soomaaliyan maxaa lagu dhahaa information si dadka okay nashqadeeye ayaa lagu yiraahdaa Soomaaliyan kadibna waa ka okay waa ku soo darsanayaa kadibna halkaan ayaan keenayaa qofkan shaqada siinayo waa qof graphic designer ah oo nashqadeeye ah okay color ayaad dooranaysaa colorkaas ayaad ka dhigan doontaa oo balaaga greenka aan dhaho cafwan colorkaas gaduudka okay shape-kiisa waad yareen kartaa okay shape-kiisa yare macnaha size-ka iska yare ayaan ula jeedaa shape-ka ila yaabin kaliya waa shape-ka size-ka iska yare ayaan ula jeedaa okay kadibna ab font ayaynu tegaynaa fartaynu rabno ayaynu ka soo dooranaynaa okay fararkan meeshan kugu jiraan dhammaan waad soo dooran kartaa midda adiga xilligaasi kula qurux badnaato ayaad ka soo dhigan doontaa okay markaynu halkaani marayno waxaan ku soo darsan doonaa shape okay waxaan ku dhufanayaa shape kadibna waxaan soo dooran doonaa shape-ka kadibna waxaan ka dhigi doonaa shape-kan color madow ayaad ka dhigan doontaa okay colorka balaaga ah ayaynu ka dhiganaynaa markaynu sidaas ugu dhigano waynu yareen doonaa oo waxaynu rabnaa inaynu dhigno qaybtaani inaynu ka dhigno ayaanu rabnaa okay shape-kaaga ha kuu saxnaado iska sax shape-ka kadibna waad yareynaysaa adigoo dhigayo bartaa geeska adigoo dhigayo okay markaad sidaas yeesho kadib waxaad ku aadin doontaa qoraalkaaga ayaad halkaasi geen doontaa okay haddeer waxaa inoo qoran informationkii marka qofkaani graphic design-ka marka aad qofka aad shaqaalaysiinayso waxaa jiro sharuudo la hordhigo qofka
qofka shuruuda ayaa la siiyaa oo liskama shaqaaleysiiyo okay marka shuruudaha ayaan ku soo darsan doonaa okay waxaan ku dhufan doontaa balastaas kadibna qalinka ayaad ku dhufanaysaa shuruudaha ayaad halkan ku qoraysaa qofka shuruudaha laga rabo ayaad halkan ku qoraysaa okay waxaanu dhihi doonaa shuruudaha waa inuu yaqaanaa ayaad ku daraysaa waa inuu yaqaanaa ayaad qoraysaa waa inuu yaqaanaa okay marka waxaad tirinaysaa nambarka koowaad ayaad ka bilaabaysaa ugu horreyn nambarada ayaan diyaarsanayaa kadib waan ku qorayaa shuruud waliba okay afwan number 2 ayaad dhehaysaa kadibna sidaas ayaad yeelaysaa number 3 ayaad dhehaysaa kadibna sidaas ayaad yeelaysaa number 4 ayaad dhehaysaa kadibna sidaas ayaad yeelaysaa ugu dambeyn number 5 ayaan ku darsanayaa sidaas ayaan yeelayaa balse adiga doodi waxaad ku qori doontaa inta number ama inta shuruudo ee aad u baahan tahay okay ani 5 shuruudood ayaan example aan u soo qaadanayaa okay kadib aan tago qaybtaani waxaan dhihi doonaa sameynta logo waa inuu yaqaan qofka sameynta logo inuu ka saaro waa inuu logo sameyn karaa okay kadib ayaan dalban karaa qofkaas ama waa u baahanahay aan dhihi karaa okay number 2 sameynta CV waa inuu sameyn karaa qofkaasi CV waa inuu yaqaan sida loo sameeyo okay number 3 waa inaan dhahaa sameynta waa inuu yaqaan sameynta ID card waa inuu sameyn karaa oo qofka liskama dalbanayo meeshaani shaqo baa la qabanaya okay sameynta ID card waa inuu yaqaan okay aan ka soo gudbo numberka 4 waa inuu yaqaan sameynta invitationka okay sameynta invitationka waa inuu yaqaan invitation sameyntiis waa inuu yaqaan sameynta invitationka waa inuu yaqaan haddii uusan aqoonin macnaheedu waxay tahay qofkaasi lama qaadan karo waa inuu yaqaan sida loo sameeyo invitation okay invitationka haddii uusan aqoonin lama qaadan karo ay la macno tahay okay numberka ugu dambeeyo waa inuu yaqaan okay sameynta waa inaad dhahdo horta ugu horreyn wax waliba waa inaad ka hormarisaa sameynta boorarka waa inuu yaqaan boorarka inuu sameyn karo balse adiga doodii waxyaabo kale ayaad ku sameyn doontaa sidii aad u isticmaalayso ama posterka wuxuu quseeyay kali ay kugu xiran tahay okay ayaan dhihi doonaa kadib qoraalka ayaan halkaas ugu soo darayaa okay markaan sidaan qoraalka halkaan ugu soo daro bartaani geeska ayaan geenayaa kadibna xoogaa waxaan ka dhigayaa colorka ayaan ka bedelayaa oo color black ayaan ka dhigi doonaa ama colorka madooban okay haddii aad farti aysan ku qancin waad iska soo bedelaysaa AB font ayaad imaanaysaa kadibna farta bolding ayaad ka soo dhiganaysaa markaad farta bolding soo dhigato sidaan ay isku soo hoosgalayaan kadibna waad kala bixinaysaa okay waxaad tagaysaa qaybtan ay qoran tahay line spleen kadibna sidaas ayaad u yara jiidaysaa okay sidaas oo kale intaad rabto ama inta kugu filan ayaad ka dhigan doontaa okay ilaa 5 taas anigu waa nagu filan tahay waa okay xoogaa ayaan iska yareen doonaa oo kaliya waxaan rabnaa inuusan qoraalka halkaa inoo dhaafin marka sidaas ayaad ugu qortay shuruudii ayaan sidaan ku sameeysanay iyo qofku waxyaabaha laga rabo okay marka aad shaqo haysiinayso waa inaad heshaa laba midkood sabir qof inaad hesho ama sidoo kale kursi waa inaad heshaa chair boss wax loo yaqaano maadaama ay tahay shaqadani shaqo banaan waa inaad heshaa kursi uusan qof saarnayn ama qof uusan ku fidin for example aniga waxaan tagi doonaa blasta kadibna from gallery ayaan tagi doonaa haddii aad u baahan tahay waxyaabaha aanu adeegsaday posterkaani waxaan ku soo dhigi doonaa telegram groupkeena halkaas ayaad ka helaysaa haddii aadan telegram groupka ku jirin waxaad kaga soo biiri kartaa qaybta commentiga ugu hore ayaad kaga soo biiri kartaa okay aniga waxaan soo qaadan doonaa midkan ay soo qaadanaya kadibna aad ayaan dhihi doonaa markaan sidaan ugu soo darsado waxaan sameyn doonaa waxaan ka jari doonaa background waxaan imaanayaa qaybtaani waxaan ku dhufanayaa erase color kadibna waa colorkaas ayaan furayaa sidaad arkaysa backgroundkiisi aad ayuu aga baxay oo aga go'ay kadib halkaan ayaan geenayaa oo halkaan ayaan ku aadinayaa okay sidaan kuu sheegay shaqadani waa shaqo banaan ee qof loo raadinayo sidaan ayaad ugu soo dari kartaa okay for example kale aan ku siiyo waxaad ku soo darsan kartaa aan ku dhahay sabir qof okay from gallery aan tago sabir qof oo shakhsi caadi ayaad soo dooran kartaa ayaan ku dhahay okay sabirkan oo kale ayaad soo dooran kartaa haddii aad u baahan tahay khasab ma ahan waa haddii aad u baahato balse kursigaas waad ka maarmaysaa doodii kursigaas waad dalad gareynaysaa haddii aad shakhsi soo qaadato aniga hadeer shakhsigan meeshan waan dhigi karaa kursigaasna waan iska
iska delete gareyn karaa okay kursigan waan iska delete gareyn karaa waa ka kadib delete ayaan ku dhufanaya shakhsigana marka sidaan oo kale ayaan halkaan u dhigan karaa balse ma rabo kursigaas ayaan rabaa inaan adeegsado waan iska delete gareynayaa kadibna waan soo ceshanayaa kursigeyga ayaan soo ceshanayaa kadibna sawirkii ayaan iska deletayaa okay kursiga bartiisa ii soo dhig halkaas oo kale ayuu ii yeelanayaa okay markaynu halkaani marayno waxaan ku soo darsan doonaa shape ayaan ku soo darsan doonaa okay waxaan ku dhufanayaa shape kadibna shape yar ayaan ku soo darsan doonaa radius ayaynu gelinaynaa shape-ka kadibna sidaas oo kale ayaynu yeelaynaa okay kadibna waxaan ka bedeli doonaa colorkiisa color gaduudka ayaan ka dhigan doonaa kadibna tick ayaan ku dhufanayaa qaybtaani ayaan keenayaa okay qaybtaani ayaan keenayaa ama aan dhigayaa qaybtaani markaan sidaan u dhigo waxaan ku qori doonaa apply now ayaan ku qori doonaa ama apply ayaan ku qori kartaa ama apply now ayaad ku dari kartaa okay ama register now ayaad ku qori kartaa balse aniga waxaan ku qori doonaa apply now ayaan ku qori doonaa apply for now ayaad dhihi kartaa okay haddeer isdiiwaan geli camal ama haddeer is apply garee okay kadib marka sidaan ayaad yeelaysaa waad yareynaysaa kadibna waxaad yeeli doontaa waad la sibi doontaa okay qaybtaas aad ku aadinaysaa markaan sidaa yeelo kalarkiisa waxaan ka dhigi doonaa kalarka cadaanka ah kadibna sidaas ayaan ku deedi doonaa okay kalarkaas cadaanka ayaan ka dooran doonaa markaynu sidaani marayno haddeer waxaa inaga dhiman halkii looga soo xiriiri lahaa informationkii lagu soo diri lahaa sidoo kale qofka shaqada u baahan informationkiisa meesha uu ku soo diri lahaa ayaa loo baahan yahay okay waxaan ku dhufan doonaa qaybtaani kadibna waxaan dooran doonaa shape ayaynu dooranaynaa anigoo ku qori doono qaybta hoose number u yeeli doono okay qaybta hoose waxaan u yeelaynaa number okay shape-ka marka asagana sidoo kale colorkii gaduudka baan ka dhigan doonaa okay colorka ugu badan ee aan adeegsanayno ayaa ah colorka gaduudka kadib waa la sameynaa okay shape-kaasi xoogaa yuusan ka gaarin iska yaree shape-kaas iska yaree oo sidoo kale farta ayadan yaree midaani kaliya waxaa laga rabaa apply for now-daas inay noo muuqato laga rabaa waxweyn sidaa ay lagama rabo marka sidaa oo kale ayaad ka dhigaysaa asagana sidaa oo kale ayaad ka dhigaysaa kan xoogaa sharuudaha iska yare ayadana waxaa la rabaa boorba wuxuu ka qurux badan yahay design uu ka far yar yahay ama uu aad aga yar yahay ayuu ka qurux badan yahay waa inaad ogaataa waxyaabaha waaweyn ee design-ka loo adeegsado badankooda ma qurux badnaadaan design-ka wuxuu aad u qurux badnaanayaa marka aad ka dhigto waxyaabo aad u yaryar aad u adeegsato marka mar waliba isku day design-kaaga inaad u adeegsato shaybisyo yaryar ama waxyaabo yaryar markaas ayuu design-ka noqonayaa mid aad u qurux badan oo qof walba soo jiidan kara marka adiga waxaa muhiim ah inuu design-kaaga dadka soo jiito okay marka xoogaa kasoo yaro siki oo qoraalka kale yuusan kaa gaarin kadibna sidaa ayaad halka u keenaysaa sida darkiisa haddeer okay uu ku soo baxay halkan waxaad ku soo darsan doontaa numberka lagala soo xiriirayo ayaad ku soo darsanaysaa ilaan shaqada marka aad social media posterka dhigto dad baa soo raadinayo shaqadii soo raadinayo balse kadib waxaad ku dhufanaysaa text kadibna qalinka ayaad ku dhufanaysaa adigoo gelin doono numberka okay contact us ayaad ku qoraysaa okay contact us ayaad ku qori doontaa contact us okay kadib markii contact us aad dhahdo waxaad siin doontaa labada dhibcood ama labada waxay la mid tahay calaamadaas ah kadib waxaad gelin doontaa numberka ay toos u gelinaysaa okay halkaas aad ka bilaabi kartaa haddii aad rabto furaha dalka aad ka bilaabi kartaa oo 252 ayaad dhehaysaa kadibna 6 hal numberka ay toos u gelinaysaa okay aniga deer numberka raba ayaan gashanayaa balse adiga dhow waxaad gelin doontaa numberka meesha ayaad gelin doontaa okay okay aniga deer numberka raba ayaan gelinayaa marka number geliso waxaa soo dhigi doontaa okay kadibna waa ka numberkii wixii dhan waa kan halkaan aad keenaysaa balse size-ka ay aad weyn size-ka ayaad iska yareyn doontaa oo size la eg ayaa la rabaa inuu noqdo oo zaid uu kala weynaanin oo qoraalka noqdo mid wada muuqda oo la arki karo size-ka iska dhin oo size-ka soo wada baxo qoraalka soo wada muuqdo kadib marka waxaad ku dhufanaysaa halkaasi kadibna waxaad u yeeli doontaa colorka cadaanka ayaad dooranaysaa kadibna shape-kaas ayaad xoogaa hoos u yara dhigaysaa kadibna numberka sidaa ayuu yahay marka waxaad gelinaysaa stroke waxa loo yaqaano stroke ayaad gelin kartaa okay stroke ayaad imaanaysaa oo balaaki waxaad iskugu dari kartaa adigoo xoogaan in yar ka dhigay khafiifinayo kadibna waxaad iska bedeli kartaa ab font farta ayaad iska bedeli kartaa oo far waaweyn la aqoonsan karo ayaad ka dhiganaysaa okay
sidaasi ayaad ka dhiganaysaa okay hadeer marka sidaad arkaysid aad ayaa loo arki karaa loona fahmi karaa waa aad ay u qurux badan yahay markaynu halkaan marayno waxaan u baahannahay inaan ku soo diro tusaale ahaan qofka CV-giisa waxaad u baahan tahay meel uu kugu soo diro WhatsApp number-kan wuu kugu soo diri karaa sidoo kale wuxuu kugu soo diri karaa Gmail ayaad halkaan u dhigaysaa tusaale ahaan waxaad dhihi doontaa send your CV waxaa la yiraahdaa qofka markuu shaqo raadinayo waxyaabaha ku qoran informationkiisa okay send your CV your ayaad ka hormarinaysaa your CV kadib CV ayaad leedahay okay send your CV kadib markaad sidaas dhahdo waxaad qori doontaa to ayaad qoraysaa waxaad ku soo dirtaa oo kale ay la macno tahay waxaad u qori doontaa Gmail-ku uu ku soo dirayo okay aniga hadda Gmail ayaan iska gelin doonaa oo tusaale kaliya ayaan ka rabnaa عدو gmail.com ayaan ku qoray okay kadibna okay ayaan soo dhigi doonaa sidaas ayaad ugu soo daraysaa marka sidaas ugu soo darsa halkaas ayaad dhigi kartaa kadibna waxaad soo siin doontaa colorkii ayaad color waxa ka dhigaysaa oo blue oo gaduudka ah okay kadibna waxaad AB font ayaad tagaysaa farta ayaad ka dhigaysaa far yar muuqata si uu qofku u aqoonsado doodi uusan ugu wareerin kadibna halka ay sidaas u dhigaysaa okay send your CV @gmail.com marka sidaan ayaa loo sameeyaa poster shaqaalaysiin ama marka aad raadinayso qof shaqeynaya ama ku shaqeeya xafiisyo aan noqoto sida shirkadaha meel walba oo u baahan inay hesho qof u shaqeeya marka waxaan rajaynayaa saaxiibayaal inaad fahanteen casharkan aad ayuu u dheeraaday marka insha Allah intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay guuleysta mar waliba haddii aad rabto inaad degsato design-kaaga waxaad kala degaysaa qaybtan save kadibna waxaad ku dhufanaysaa save as image kadibna waxaad dooranaysaa qaybta kadibna alter idesa kadibna save to gallery ayaad ka dooranaysaa okay gallery-ga ayaa toos lagu safeeyaa